marka horta ayagu jahaad kuma jiraan anaga jahaad ku jiro oo ayaga jannada ku galay inuu ka raadsanay. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلان كسو دبا يوتيوب كيغا دا كعصبتا سبسكرايب يسار فيديو لايك سار. maanta waxaan ka hadlaynaa taariikhda General Odawa Yusuf Raage. General Odawa Yusuf Raage ayaa noqonaya generaalkii loogu jeclaay dhankaas iyo ciidanka dalka Soomaaliya. General Odawa Yusuf Raage waxyaabaha lagu yaqaan ayaa waxa kamid ah inuu yahay mid ciidankiisa soo dhaxgala, ciidankana aad iyo aad u jecel, mar walbana qadariya ixtiraama toodana ka hormariytiisa, mar walba dagaal la galayna fronta hore jooga. General Odawa Yusuf Raage ayaa noqonaya generaalkii ugu da'da yaraa ee soo maray generaalada yacni gaaray sareeyo gaas oo ah yacni ninka ugu sareeya ciidanka dalka yacni Soomaaliya. General Odawa Yusuf Raage ayaa markii dhawaan la magacaabay marka hore qabtay waxyaabo aad iyo aad ciidanka ay ugu bogeen kadib markii xilka laga qaadayna aad ugu xumaadeen, laakiin se dhawaan mar dhow la magacaabay bishan dhexdeeda October. markii la magacaabay ayaa ciidankii meel walba ay joogaan ay aad iyo aad ugu dabaaldegeen jacayl ay u qabaan oo kaliya. waxyaabaha ay ku jeclaadeen wax kale ma ahan, generaalka ayaa ah mid yacni tiisa ka hormariya tooda, mar walbana ka fikira caafimaadkooda iyo raashinkooda, mar walbana dhaxgala haddii dagaal la qatana ugu horeeya kiisa qaata, waana waxyaabaha kaliya ee ciidanku ugu jeclaan karaan. taas ayaa ka mid ah. Okay, haddaba aan guda galno taariikhda uu dhashay General Odawa Yusuf Raage. General Odawa Yusuf Raage wuxuu dhashay 1987 waana 37 jir. wuxuuna ku dhashay degmada Aadan Yabaal ee Shabeellada Dhexe. waxbarashadiisa tan dugsiga hoose iyo tan dugsiga dhexe wuxuu ku soo qaatay degmada uu ku dhashay ee degmada Aadan Yabaal, laakiinse waxbarashadiisa tan dugsiga sare ayuu wuxuu soo wareegay dhankaas iyo magaalada Muqdisho. meeshaas ayuuna ku qaatay 2006 ayuu ciidanka qortay, wuxuuna ku biiray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, wuxuuna ka tirsanaa guutadii 54aad ee ilaalada madaxtooyada magaalada Muqdisho, inkastoo uu ka mid ahaa dagaalyahanadii cadowga ka xoreeyay magaalada Muqdisho. waxaana xusid mudan in janaalka markiisa ugu horeeyay uu ka mid ahaa ciidankii xoreeyay magaalada Muqdisho iyo tan xamar ka xoreeyay kooxda Al-Shabaab. kadib markii uu galay dagaaladii dalka loogu sifeynayay kooxda Al-Shabaab, asigoona hogaaminayay ciidanka tiknikada iyo ciidanka dhulka, asigoona ka dagaalamaya dhankaas laga bilaabo madaxtooyada ilaa iyo Bakaaro, inkastoo ciidamada si kor ka heystay General Cabdullaahi Cali Caanood. generaalka ayaa tababar ku soo qaatay dalka Turkiga iyo Uganda. sanadii markii ahayd 2007 ayaa dowladii markaas xilka haysay ee Cabdullaahi Yuusuf asiga iyo dhalinyar kale waxay u dirtay dhankaas iyo dalka Uganda si ay u soo qaataan tababar dhanka military ah, ayagoona ku biiray jaamacadda dalkaas ee lagu magacaabo Kabaweta. halkaas ayuu ku qaatay tababar asaasi ah iyo sida loo ilaaliyo madaxda. isla sanadkii ku xigay ee 2008 ayaa generaalka iyo 12 sargaal kale waxaa dib loogu celiyay dhankaas iyo Uganda, ayagoo galay dugsiga tababarka ee Bihani Academy kaas oo ku yaalo galbeedka dalka Uganda, ayagoo tababarkooda ahaa si loogu tababaro taliye ururnimo. sanadii markii ahayd December 2009 ayuu qaatay darajadiisii ugu horeysay oo ah 2 alifle, waxaana guddoonsiiyey madaxweynaha markaas xilka hayay ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed. haddaba waxaa meeshan ku soo ilaaday qaybteennii koowaad ee nagu hadlaynay taariikhda General Odawa Yusuf Raage. haddaba qaybta xigta la soco dhawaan oo soo dhigi doonaa iyadana insha Allah. qaybta xigta waxaa diiradda ku saareynaa xilalkii uu qabtay, dagaaladii uu galay iyo caqabooyinka oo la kulmay iyo asbaabaha ugu weyn ee ciidamada ay ku jeclaadeen. insha Allah waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkan ka heshay. fadlan haddii aad ka heshay waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalka like iyo saartid, fiidiyogana aad sii share gareyso. aad iyo aad u mahadsantahay. la soco qaybteeda labaad.